wadanka uu ka leeyahay continuity uu dowladdiisu ay isdaba joog tahay waa ka hormar badan tahay dowladaha isbedbedela maxaa yeelay marka aan dhanka dhaqaalaha ka fiiriyo haddii la rabo in lagu maalgashado waxaa la fiirinaya deganaanshaha dowladdaas inay tahay dowlad kula dhammaystiri karta mashaariicdii la bilaabay iyo shaqadii la bilaabay iyo dowlad heshiiskii la galay fulin karta laakiin haddii uu jiro isbedel joogto ah cid ku maalgashanaysa ma laha iyada naftigeeda doorashooyinka 4 sano dhacaya waxay tahay dowladdu haddii prediction laga samayn karo la saadaalin karo wax imaanaya waxa weeye aaminkaagana waa fiicnaanaya oo cidda rabta in wax kula qabsato waxay aaminsan tahay inaad joogayso ay kula shaqaysan karto marka isbeddelka naftigiisa waa qayb ka mid ah dib u dhaca